ما شاء الله maanta waxaa waaye waa maalin khamiis ah 17 bisha Oktoobar ما شاء الله waa maalin aad iyo aad u qurux badan saad u jeedaan geedihii dhan caleemihii ay daadiyeen geedkan waxaa soo caleemaha isaga ka daateen xilligan waa xilligii uu soo dhawaa xilliga barafka geedihii oo dhan caleemaha ayaa ka daatay ما شاء الله dhowr maalmood ka hor geedahan aad iyo aad ay u qurux badnaayeen caleemahan intaysan daadanin hadda laakiin waxaad moodaa kulli inay dhulka daateen ما شاء الله waa maalin qurux badan waa ilaahay mahadiis maanta waxaan rabnaa inaan ka soo duubno vlog yar magaalada quruxdeeda iyo caleemaha aan u jeedaan waxay caleemo dhan dhulka ku daateen waxaan caleemaha u jeedaan caleemahan lama tuuro caleemahan dhan waa la xaabiyaa waa la guraa markii la gurana ka bacdi waa la shiidayaa kadib maxaa la yiraahdaa dhirta ayaa lagu soo celinayaa waxay noqonaysaaba manure oo dabiici ah oo jeedaan geedaha ma sha Allah aad iyo aad ay u qurux badan yihiin geedahan dhan cagaar ay ahayn xilliga samarka markii la gaaro xilligan oo kale oo qabowga ay imaado caleemaha dhan sidaas ay noqonayaan waa xilliyada ugu quruxda badan ay ka mid tahay wadankan ما شاء الله waxaana caleemaha bal fiiraaday dhulka wax ku daatay caleentan waa caleemaha ugu quruxda badan waaye geedahan waa geedo very unique ah waaye geedahan oo kale hadii la qaado wadankeena way ka baxayaan dabcan marka khiyaarta maanta intaas clipkaas intaas yarista ayaan rabaa inaan soo duubo waa meeshan saas u quruxda badan u jeedaan waa xaafado waaye qoraxdina waa taas ما شاء الله gurigan waa guriga maxaa la yiraahdaa qashinka lagu guro milyo house la yiraahdaa qashinka dhan halkaas la geliyaa ما شاء الله ujeedaan qoraxday waa xilli casar ah goobtuna waa magaalada Växjö ee dalka Sweden marka khayrta ku soo dhawaada haddana waan baxaynaa gaarigeena waa kana insha Allah programkan isagoo dhammaystiran ayaan soo geli doonaa haddii la yiraahdo haddana waxaa waaye sidaas iyo nabadgelyo shimbiraha u jeedaan ما شاء الله codkaas aad iyo aad ay u fiican yahay shimbirtaas dhawaaqeeda qof walba ayaa dhagaysi jecel inuu shimbirta dhawaaqeeda inuu iskaga raaxaysto dabayshaas iyo nabadaas aqaarta waxaan kaga tagayaa warsan iyo wanaag insha Allah program dheer ayaan soo duubi doonaa oo ku saabsan xagga cimilada haddana waan salaamaynaa khiyaarta waa maalin qurux badan